habeen wanaagsan qodobada wararka Somali News idinkugu soo gudbi doonana waxa qayb ka ah Ra'iisul Wasaare Roble oo kulan la yeeshay saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa AMISOM waxyaabaha ay ka wada hadlayaan halka idin kula wadaagi doona Siciidani madaxweynaha Puntland iyo Maxamuud Diyaano markii ugu horeysay kulan albaabada u xiran ku yeeshay magaalada Boosaaso faahfaahin dheeraad oo ka soo baxay dagaal qasaare geysta oo ka dhacay gobolka Bakool oo dawladda Soomaaliya al-shabaab dhexmaray dawladda Shiinaha iyo Soomaaliya kala hadashay xoojinta amniga dalka iyo beesha caalamka Midowga Afrika oo ka wada hadlay howlgalka cusub ee Soomaaliya AMISOM qodobada iyo qodobo kale ayaa wararka habeenay Somali News qayb ka ah oo diyaar garooba markale kulan wacan oo wanaagsan waa habeenimo talaada sii baxaysa Arbacada iyo soo galaysa taariikhda waa 1 bisha 3 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahino fadlan muuqaalkan haduu ku soo gaarsiin share garay oo saaxiibada kale la sii wadaag bogana Somali News-na haday tahay markii kugu horeysa soo boqoto ku soo biir si aad u hesho xogaha iyo macluumaadka in halkaan soo galino haddii ayna ku bilowna Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa shir la yeeshay taliyayaasha hay'adaha amniga ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shir la yeeshay taliyayaasha ciidamada hay'adaha amniga ee dalka iyo ciidamada AMISOM kaas oo diiradda lagu saaray adkeynta amniga guud ee dalka gaar ahaan caasimadda Muqdisho Ra'iisul Wasaare Roble ayaa faray laamaha amniga inay xoogga saaraan dardargelinta howlgallada ka dhanka ah ee la dagaalanka al-shabaab sida lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumadda dalka dhinaca kale Roble ayaa faray dhammaan hay'adaha ammaanka dalka iyo ciidamada AMISOM inay si gaar ah loo isaga adkeeyo amniga caasimadda oo dhawaan lagu qaban doono doorashada dalka mid ugu sareysa madaxtinimo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynihii 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya kadib dhamaadka doorashada xildhibaanada golaha shacabka 15 bishan aynu ku guda jirno ku eg Maxamed Xuseen Roble Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ma ahan markii ugu horeysay kulan la yeeshay laamaha amniga mar labaad ayuu ugu baaqay in la dardargeliyo amniga caasimadda waayihii dambe falal amniga lidka ay ku soo badanayeen Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya kala hadlay inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda ee xilligan dalka jahwareeriyay saraakiisha ciidamada iyo kuwa AMISOM ee kulanka la qaatay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaana la wadaagay xaaladaha guud ee amniga iyo sida ciidamada heeganka ugu jiraan sugitaanka caasimadda amnigeeda oo dhawaan doorashada madaxtinimo ee dalka ugu sareysa martigeli doonto markana Boosaaso madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo agaasimaha xulka uu ka qaaday ciidanka BSF ayaa maanta kulan albaabada u xiran yihiin waxa ay ku yeesheen madaxtooyada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kulankaasi waxa goobjoog ah ismada gobolka Bari iyo waxgaradka oo iyaga garwadeynka ah qabsoomida kulankaasi kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo labada mas'uul ay yeeshaan tan iyo dagaalkii Boosaaso ku dhex maray oo sababtay xilka qaadista agaasimaha ciidanka BSF Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi Diyaano waxaana maanta Siciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale Maxamuud Cusmaan Diyaano ay kulan ku yeesheen magaalada Boosaaso ciidamadii kala taabacsanaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo agaasimaha xilka oo ka qaaday General Maxamuud Cusmaan Diyaano ayaana dagaal qasaare geysta oo ku dhex mareen sanadkii hore bishii u dambeysay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari magaalada Boosaaso maalmihii dambe ay ka taagneed arrimaha siyaasadeed oo dhanka doorashooyinka maadaama madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani lagu eedeeyay musuqmaasuqii ugu weynaa ee dhanka doorashooyinka isla markaana doorashadu uu ku doonayo inuu ku soo saarto shakhsiyada isaga daacad u ah haddana waxyaabaha ugu waaweyn ee Siciid Cabdullaahi Dani iyo Maxamuud Cusmaan Diyaano kulankooda ay ka wada hadleen waxa qayb ka arrimaha doorashooyinka iyo soo afjaridda xiisadii waayihii dambe ka dhaxaysay madaxweynaha Puntland iyo agaasimaha xulka uu ka qaaday Maxamuud Cusmaan Diyaano balse iska diiday guddiga doorashooyinka Puntland ayaa hore u shaaciyay doorashada 16 kursi oo 2 maalin oo isku xigta lagu qaban doono magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari musharaxiinta u sharaxan ayaa haatan walaac xooggan muujinaya kuraasta kadib shakhsiyaad gooni oo loo xiray waxayna madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani xilligan ay ku eedeynayaan inuu baalmaray jadwalkii u degsanaa doorashada dalka kulanka dhex maray Maxamuud Cusmaan Diyaano iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaana waxa goobjoog ahaa ismada gobolka Bari ee Puntland markaana Koonfur Galbeed faahfaahin dheeraad ayaa waxa laga helayaa weerar qorsheysan oo saaka xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku qaadeen qaybo kamid ah degmada Xudur ee gobolka Bakool
waxaana xigay dagaalka foolkafool oo ciidamada dowladda iyo al-shabaab halkaasi weeraray dhexmaray. xogaha ayna ka helina dagaalka ayaa sheegaya in al-shabaab ay iska caawin xoogan kala kulmeen ciidamadii dowladda ee ku sugnaa degmada kuwa oo dagaal la galay. taliyaha ururka 175 ee guutada 9aad ee ciidanka xoogga dalka Maxamed Sanguus oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday inay jab xoogan gaarsiiyeen al-shabaabkii soo weeraray isla markaana ku dileen ilaa 3 xubnood kuwa kalena ay dhaawaceen. taliya Sankuus ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay ka carareen meedka 3 nin isla markaana ay ku soo bandhigeen degmada Xudur oo ah meesha uu dagaalka ka dhacay. sidoo kale taliyaha ayaa intaa ku daray inay ku raad joogaan xubnihii kale ee ka baxsada weerarkaasi, wuxuuna tilmaamay inay haatan wadaan howlgallo ballaaran oo looga hortagayo falalka amni darre. magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa waxaa ka jirta xaalad cakiran kadib markii al-shabaab ay go'doon geliyeen sanadihii dambe, waxaana haatan u dheer halka bulshada ku nool abaaraha ku dhufta dalka oo saameynta xoogan yeeshay. dagaalka dhexmaray ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa ku soo aadaya xilli maanta madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen uu qasriga madaxtooyada magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdi ka socday ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay, kuwaas oo kala hadla arrimaha doorashooyinka, amniga iyo abaaraha ka jira Koonfur Galbeed. Laftagareen ayaa xaaladaha ugu dambeeyay ee maamulka Koonfur Galbeed la wadaagay wufuudda ka socota qaramada midoobay oo amniga iyo doorashooyinka iyo sidoo kale abaaraha ku dhuftay deegaanada maamulkaasi ay ugu waaweyn yihiin. markaana beesha caalamka iyo midowga Afrika ayaa ka shiray howlgalka cusub ee Soomaaliya ee ciidanka AMISOM bedeli doono. gudoomiyaha midowga Afrika arrimaha siyaasadda iyo nabadda iyo ammaanka ee Afrika ayaa maalintii 3aad Muqdisho booqasho rasmi ah ku jooga, waxaana kulamo la yeeshay saaxiibada beesha caalamka ee ku sugan dalka. gudoomiyaha midowga Afrika ayaa xubnaha beesha caalamka kaga mahadceliyay taageerada weyn ay siiyeen AMISOM taas oo socotay ku dhawaad 15 sano ee la soo dhaafay dalka ku sugnaayeen. sidoo kale waxa uu la wadaago horumarada iyo meelaha mudnaanta leh ee lagu wajahayo howlgalka cusub ee AMISOM bedeli doona iyagoo kaashanaya ciidamada ammaanka ee Soomaaliya. gudoomiyaha midowga Afrika ayaa mar kale ku baaqay in taageero maaliyadeed iyo mid garab oo joogto ah oo leexleexad lahayn la siiyo howlgalka Soomaaliya iyo ciidamada amniga ee dalka si loo xoojiyo qorshaha lagu xaqiijinayo amniga Soomaaliya. gudoomiyaha midowga Afrika arrimaha siyaasadda iyo nabadda iyo ammaanka ayaana horey ula kulmay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha madaxweynkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, wuxuuna maanta la kulmay qaar ka mid ah safiirada Soomaaliya ee dalka ku sugan. ugu dambeyntiina taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raga ayaa la kulmay safiirka dalka Shiinaha u jooga Muqdisho ee Soomaaliya. General Odawa Yuusuf Raga ee safiirka China ee Soomaaliya ayaa ka wada hadlay xoojinta taageerada Shiinaha oo siiya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dhinacyada tababarada iyo qalabka iyo sidii loo sugi lahaa amniga caasimadda iyo sidoo kale gobolada kale ee dalka. General Odawa Yuusuf Raga taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la wadaaga xogihii ugu dambeeyay iyo howlgallada ciidamada ay wadaan iyo deegaanada waayihii dambe ay gacanta ku dhigeen oo al-shabaab ay ka safeeyeen. safiirka dalka China ee Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya dhinacyo badan dowladda China ay ka taageeri doonto oo ugu waaweyn yihiin tababarada ciidamada iyo inay helaan qalabkooda. labada dhinac ayaa isu wadaarsaday xaaladaha guud ee amniga dalka iyo sidii door wanaagsan China uga qaadan lahayd sar u qaadida tayada ciidamada iyo tababarada ee Soomaaliya. inta ayaan ku soo gabagabeynaa qiyaalay tabinta wararka aad kala socoteen Somali News mid lamid ah inta kulmi doona nabadgelyo. fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaarsiin share garay saaxiibada kale sii gaarsii bogganana ku soo bir. maxay sanadeen